بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن مركله idil ahaantiinba meel kasto aad daafaha dunida naga daawanaysaan kuna soo dhawaada wararkii caalamka idinkaga imanaya London xarunta dhexe ee TV-ga caalamiga ee Somali Channel wararkana waxa soo jeedinaya aniga Cabdullaahi Xuseen Maariya wararka aan idin haynana waxa ugu daroon maamulka sare xarakatu shabaab al-mujaahidiin oo soo bandhigay sanad military oo ay sheegeen inay kaga qabsadeen ciidamada dawladda ku meel gaarka ah iyo kuwa AMISOM oo wada jira ay kula dagaalameen qaybo kamid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir iyo waliba dawladda ku meel gaarka ah Soomaaliya oo beenisay in ciidamadeeda iyo kuwa AMISOM ay dib uga soo noqdeen goobihii ay kala wareegeen xarakatu shabaab al-mujaahidiin degmada Daynile gobolka Banaadir oo ay dhawaan ku dagaalameen iyo waliba madaxweyne ku xigeenka Somaliland oo maanta qada sharaf ugu sameeyay odaya dhaqameedka magaalada caasimadda waa gobolka Awdal ee Boorama una sameeyay qadadaasi ay u soo afjaraan khilaafkii dhaqanka ee baryahanka taagnaa gobolka Awdal iyo waliba wasaaradda dekedaha Puntland oo maanta ka hadashay burburin ay ka wada dhismayaal ku xeeran aaga ay ku taal dekeda weyn ee magaalada Boosaaso iyo dadka ku dhaqan wadanka Mozambique ee Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadlay gelitaanka ciidamada Kenya ee iyagu dhaafay xadka wadanka Soomaaliya ay la leeyihiin in ka badan 100 kilomitir wararka caalamka aan idin haynana waxa kamid ah ururada caanka ama dawladaha caanka ee ku bahoobay NATO oo iyagu joojiyay kadib markii in ka badan 26,000 oo goor ay hawada sare ka weerareen wadanka Liibiya kuna dhawaaqay maamulka sare ee militariga ee ururka leeyahay NATO in ay maanta soo afjareen dagaalkii baanaa ay hawada kaga hayeen wadanka Liibiya iyo Colonel Muammar al-Gaddafi oo caruurtiisii iyo xaasaskiisii meel ay sal iyo raatoona dhigeen la yahay intaasi waa warkii oo kooban haatan se isagiyo fidsan balse inta aynan u galin wararkan iyo qaar kale oo xiiso leh qadar yar oo idhaha aniga oo idin xasuusinaya inaanu idin hayno taariikh ku saabsan Muammar al-Gaddafi iyo reerkiisa